salaamullaahi saaxiibayaal, waxaan kuu soo gudbin doonaa daawade 9 sheeko oo ku cajabgelinaya kuwa oo aadan sinaba u rumaysan doonin. waxaana laga yaabaa inaad filimada ku daawatay dhacdooyin la jelayo kuwa oo been iyo run isugu jira. 1. Gino Martinez wuxuu ahaa dadka masaariicada ku caanbaxay, sidoo kalena wuxuu ahaa dadka xushmada gaarka ee loo hayo markay imaado legdanta iyo dagaalka. Gino ayaa haddaba daawade marka laga soo tago xirfadiisa wuxuu ahaa nin yaab leh, sida inuu dhagax madaxa ku jibiyo, musbaarna madaxiisa ku duleeliyo, taa oo dad badan soo jiidatay isla markaana dhacdadaas isaga loo diiwaan geliyay. 2. Master Shang Tsung waa nin caan ka ah dunida, wuxuuna awood ku leeyahay gacmihiisa. cabir gooni ah oo la saaray awoodda u qarsoon ayaana lala yaabay, waxaana soo booqdaa dadka caankiihi ee jugaha soo gaara isagoo adeegsanaya xirfadiisa u goonida ah ayuuna gacantiisa ku daaweeyaa. 3. Natasha Damkin waa gabar ka soo jeeda wadanka Ruushka ama Ruushka saa u taqaanidba, waxayna awood u leedahay inay indhaheeda ku aragto qofka jirkiisa. indhaheeda ayaan u dhigma X-ray ama raajo qofka la saarayo. awoodda ayaana markii ugu horeysay ay ku tijaabisay hooyadeed. dhaqaatiirta caalamka ayaana yaabay markii arkeen sheekada gabadhan, waxayna sidaa ku gashay Natasha awoodaha qarsoon ee dadka gaarka ah. 4. Louis waa Francis qaatay dhalashada wadanka Canada. ninkan ayaana maanta loo tiriyaa dadka nool ee dunida ninka ugu xooga badan, wuxuuna qaadaa dhagaxyada. dadka caadiga ahna 3 ayuu u qaadaa, iyadoo taa lala yaabanaa ayuu haddana fardaha aad aragtay oo dheereeya ayuu 2 ka mid ah xarga ku celiyey. hadda ogow, waa fardihii aad taqaanay. 5. Beshal waa nin caan ku ah dabaasha, isla markaana quusa gunta hoose ee badda ayuuna gaaraa. Beshal ayaana inta uu doono biyaha ku jiri karaya isagoo aan neefsan. ninkan ayaana mar la wareysa sheegay inuu ku raaxaysanayo ku jirka biyaha inta uunan badda gelin, ayuuna marka hore iska tijaabiyaa. 6. Kevin Richardson waa nin isaga mucjisadiisa goonida wata, wuxuuna ku caanbaxay la ciyaaridda noocyada kala duwan ee xayawaanaadka. wadanka South Africa ayuuna ku soo bandhigaa waxyaabaha cajiibka ah ee dadka ninkan ku xiran ay soo jiitay ayaa ah inuu libaaxa adiga aragtay oo aad ka cabsato daawade inuu la ciyaaro, isla markaasna hadduu doonana uu la jiifto. 7. Rush Mohan waa nin reer Hindi ah, wuxuu wataa ninkan mucjiso ka duwan intii aad daawateen oo idil. korkiisa wax koronto la yiraahdo ma karaan, sidoo kalena korkiisa ayuu ka dhalin karayaa korontada. Rush hooyadii ayaa sheegtay inay mucjisadan ay ku aragtay markii uu jiray 6 sano. Master Mohan ayaa maanta korkiisa heerka awoodeed uu gaaray lagu karin karayaa cuntooyinka. 8. Dequances ayaa ah nin awoodiisa u goonida wata. ninkan ayaana guud ahaan California oo idilba orod ku soo maray. kaliya wuxuu jiifan jiray habeenkii, isla markaana subaxii orodkii halkii ayuu ka bilaabi jiray. ninkan ayaana dad badan oo caalamka ku nool dhacdiisa ay soo jiidatay. dadka qaarkoodna waxay ku tilmaameen inuuna wadnan lahayn, maadaama xawaarihiisu gaaray inuu guud ahaan California uu orod oo ku soo maro. 9. Michel ninkan ayaa ninka tagay cuntooyinka dadka caadiga ay cunaan, beddelkeeda wuxuu cunaa biro. ninkan ayaana dhaqaatiirta ay aamini waayeen jirkiisa, waxayna sameeyeen baaris, waxayna ka waayeen wax ciladaha uu jirkiisu qabo. biraha uu cuno ayaana la sii ogaaday inayna saameyn in ku lahayn isaga, isla markaasna biraha aad arkayso siduu cunayo daawade ayaan u joogaa booska jikinka iyo cuntooyinka caadiga. waa ka qaadooyinka cunaya. hagaag daawadayaal, la jaanqaadkiina ay daawashadiin aad baad ugu maasantihiin. si aad maalin walba dhacdooyin kala duwan oo caalamka aad u daawato, bartaan ku xirnow, isla markaana gambaleelka furo, saaxiibadaadana la sii wadaag. mahadsanid.